Suldaanka shanta Soomaaliyeed Suldaan Yaasiin Yuusuf Jaamac muddooyinkii u dambeeyay safar ku marayay gobolka Sanaag ayaa soo dhaweyn lagu sameeyay deegaanka Godbarwaaqo oo hoos yimaada degmada Ceelifeen ee gobolka Sanaag halkaas oo ay soo dhaweyn ugu sameeyeen shacabka ku nool deegaanka Godbarwaaqo. Suldaanka shanta Soomaaliyeed Suldaan Yaasiin Yuusuf Jaamac ayaa ujeedka socdaalkiisu daaranaa inay ka shaqeynayaan nabadgelyada deegaamada Ceelifeen waxaana madashaasi lagu soo dhaweeyay hadalka u kala dambeeyay cuqaal waayeel iyo waxgaradka deegaanka Godbarwaaqo. Dhaweynayna insha Allah taala waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa wada soconay wafti ballaaran oo ka timi galbeedka suldaankii shanta Soomaaliya ayaanu maanta halkan Godbarwaaqo ku soo dhaweynaynaa kaasoo muddooyinka marayay gobolladan Sanaag marayay ilaa Maydh tagay adeerna tuulooyinkii iyo qaryooyinka intii u harsanaa maraya ayaanu halkan ku soo dhaweynaynaa anigu Ceelifeen ayaa ka soo raacay marka qaryadan oo Godbarwaaqo ayaanu ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u salaamaynaa qaryadu waa qaryadaadii iyo dadkaagii ku soo dhawow suldaan soo dhawow baan leenahay soo dhaweyn fiican baan ku soo dhaweynaynaa wixii aad war noo sidano odayaashii hore dhameeyay ku tumasho male wixii war aad noo sidano waad nooga waramaysaa galabta waxay ka hortageen oo sacab iyo bogaadin iyo farxad iyo rayrayn iyo soo dhaweyn kala hortageen suldaanka shanta Soomaaliya Yaasiin Yuusuf Jaamac alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacan suldaanka shanta Soomaaliya wuxuu huwan yahay taariikh cajaa'ib ayuu huwan yahay ummad islaam bulsho aan maxay tahay baanak habeen kasta cabsi ku seexanay oo waxaad looga naxawiyay arintaas meel baa u tagnay gobolka iyo maamulka waa iska soo aragnay cid walba khusayso waa isla aragnay qabiilada kale waan wada hadalay insha Allah meel fiican ba marayaan waxba laga degdegi maayo magaalada joogna magaalada nabadeed bay ku sugtantay xaqatan magaalada nabadeed aan balaayo laga wadin waxaan ku buurinayaa wax kasta haday dhintaan nabadgelyo ka shaqeeya nabadgelyo laga shaqeeyo nin wada waxa ogaataa nabad oo ku khasbantahay wax kasta haday dhintaan nabad ba ka dambaysa wax kasta haday dhacaan hadii aabaha la dilo hadii hooyada la dilo nabad baan ku khasbannahay nin wada taagu qofka nabadda yaqaan ba colaadana yaqaan aniga colaad idin sheegimayso iyo xabad waxaan idin sheegayaa waynu ku khasbannahay nabadda inaynu ka shaqeyno nin wada waxa xisaabsan naftaada miyaad jeceshahay imka xabad lagu dhufto lagu dilo waa maya dee qofka dilaysana waa saas oo kale weeye nin wada taa ku xisaabta dardaarankeega koox waxa weeye xabadda hala joojiyo colaadda hala joojiyo imka aad waxaan ku faraxsanahay inay soo dhaweeyeen majeerteen iyo dhulbahanta oo calaamadeedka qayb ka ahaa anu suldaan qabiil mihi suldaan sacad ismihi mid habar jeclan mihi awal mihi ugaadeen mihi waxaan suldaanka shanta Soomaaliyeed baan taytarkaygu waa kaas weeye dhanka kale waxa uu suldaanku safarkiisa ugu sii kictamay degmada Bohol oo ka tirsan gobolka Sool waxaana sidaas si la mid ah u soo dhaweeyay shacabweynaha ku nool degmada Bohol waxaana halkaas hadalka u kala dambeeyay qaar ka mid ah waayeelka dhalinyarada iyo haweenka degmada Bohol waxaana uu suldaanku halkaas ka sheegay inuu yahay suldaan aan xuduud lahayn isla markaana uu yahay suldaanka shanta Soomaaliyeed basudaankooda waa dalkaagii waa dadkaagii waa duriyadii suldaan waxa ku leenahay ku soo dhawow una ducee dadkan iyo deegaanka iyo qaryadaba inaad u duceyso ayaan doonaynaa shanta Soomaaliyeed Yaasiin Yuusuf Jaamac Raale shanta Soomaaliyeed buu ka socdaa oo yahay baan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo baan ku soo dhaweynaynaa saasaan ugu soo dhaweynaynaa dadka iyaga hadaan nahay degmada Bohol oo shanta Soomaaliyeed suldaan ah soo dadkii Soomaaliyeed waa dadkiisii waa halkan si mugliya maamul baan soo dhaweynayaa degmada Bohol hadii Ilaahay ku rooyahay waa dadkiisii waa dadkii Soomaaliyeed shantii Soomaaliyeed baynu ka mid nahay si mugliya miisaan baan soo dhaweynaynaa ama hadle Ilaahay subxaanahu wa ta'aala halkan soo keenay dhamaanteen halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa Yaasiin Yuusuf Jaamac Raale suldaanka shanta Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan suldaan waxaan leenahay dalkaaga iyo dadkaaga weeye insha Allah bidmilaa karin inaad ducayso duco iyo karaamo ayay ka mudan yihiin kaana rabaan Bohol
waxaan ku yidhi waxaan ku soo dhawaynaynaa yaasiin yuusuf suldaan yuusuf yaasiin yuusuf jaamac waxaa weeye wuu naga badan yahay shirkan maanta iyo golajoogga maanta waxaanu leenahay meel ka socdaba waanu ku taageersannahay waanu ku garab taagannahay waxaa ku leenahay alla xilkaana ha ku guuleeyo aan leenahay ku soo dhow suldaan usugiya miisaan loogu soo dhawaynayaa suldaan waa dadkaagii dalkaagii meesha magaaladaadii ku soo dhawow suldaan reer bohol dhammaan dadweynihii degmada bohol waxaan ku soo dhawaynaynaa bartan suldaanka suldaan yaasiin yuusuf jaamac carhaale oo ah suldaanka shanta Soomaaliyeed ka socda Soomaali shanteeda dawladoodba waxaan leenahay suldaan ku soo dhawow degmadaadii dadkaagii deegaankaagii maanta ku kulanay degmadii bohol sidaa noo soo dhaweyseen rag iyo dumar iyo madax waxaan leeyahay dhamaantiin reer bohol jisaakumullahu khayra jisaa aniga waxaan rabaa inaan taariikhda isaga ka sheekeeyo iyo xilkan aan sido wuxuu yahay anuu xil saacadoon sama sido mid isaaqna ma sido mid habaroon sama sido 2020 bishii 7-11keedii telefoonadaad ka helaysaan waxa lagu caleema saaray Sweden waxa la caleema saaray suldaanka shanta Soomaaliyeed taasaan ku soconaa oo ku shaqaynaynaa waxaan hay suldaanka bilaa xuduud ah meel walba ka degaynaa Soomaaliya OLFD Ethiopia Djibouti tanmidii khaasa maaha shanta madaxweyne ee shantaas leedahay suldaankoodii baan ugu ahay meel walba taa ku xisaabta Abdul Jaam Maxamed CBA degmada Ceelifin gobolka Sanaag